ciidan tiradiisu gaadhayso 2500 oo askari oo liyu boolis Soomaali ah ayaa xalay lagula shiray tuulada Dhakayo oo ka tirsan degmada Gursum ee gobolka Faafan kuwaasoo yeelin loo qaado dagaalka waqooyiga Itoobiya ka socda si ay axmaaro uga difaacaan Tigreega. ciidankan ayaa sida ay saraakiil shirka ka qayb gashay noo soo sheegeen maalmahanba lagu ururinayay tuulada Dhakayo oo ku taalla meel u dhow Dhagaxle, waxaana ciidankan galwadeen looga dhigay nin la yidhaahdo Korneel Xasan oo ka soo jeeda degmada Guradhamoole beesha Gurgure ahna abaanduule ku-xigeenka ciidanka liyuga. sida xogta lagu soo gaadhay waxaa Korneel Xasan Yare ciidankan la maamulaya oo uga hooseeya Korneel Cabdille oo reer Cabdille reer Sheegoosh ah, Korneel Gafaydhe oo reer Guragaba reer Isaaq ah, iyo Korneel Bakare oo reer Goday kala moga ah. ciidankan la dirayo looma dhamaystirin qalabkii iyo gaadiidkii dagaalka, seed, hub, cunno, rasaas iyo baahiyihii kaleba wax ka horeeya oo baahiyahaas daboolayana ma jiro haba yaraatee. kaaga darane waxaa la geenayaa xuduudda Canfarta iyo Tigreega inagoo og inaysan liyuga Canfarta iyo Soomaalidu is arki karin, islamarkaana horay liyuga Canfarta looga dilay abaanduulahoodii guud ee ciidamada liyuga. waqti xaadirkana laga yaabo inay ka caarsadaan inay u aargutaan abaanduulihii oo ay dilaan abaanduulayaasha ciidamadan hadda loo idmaday ee uu ka mid ka yahay abaanduule ku-xigeenka guud ee ciidamada liyuga Korneel Xasan Yare. waxaa diridda ciidankan qayb ka ah oo naloo xaqiijiyey in saraakiisha ciidanka wata magacyadooda iyo sawiradooda loo sii gudbiyey liyu booliska Canfarta, taasoo shirqool la rabo in saraakiishaas dhabarka lagaga toogto si ay Canfarta uga aargudato sargaalkoodii hore ee abaanduulihii guud ee ciidamadooda ee la dilay. ciidamada Soomaalidana uu hogaaminayo abaanduule ku-xigeenkii guud ee ciidamada liyuga.